Maalinka 14aad bisha Ramadaan, Cabbaasiyiinta waxay la wareegeen Dimashq. Maanta oo kale, 132 Hijriga, ayay soo galeen Dimashq oo ahayd xilligaas caasimadii dowladdii Umayyadeed. Way burburtay iyadoo xilka haysay muddo ka yar qarni. Xukunkana waxaa la wareegay reer Cabbaas muddo ka badan 5 qarni. Xukunkii Tumaan Bay. Maanta oo kale, 922 Hijriga, Tumaan Bay wuxuu la wareegay xukunka Masar kadib markii lagu dilay Qanshuh al-Ghanawi dagaalkii Marij Dabiq. Asagana wuxuu ka dambeeyay 3 bilood oo waxaa lagu daldalay Baabu Zuwayla ee dalkaas Masar. Sidaas darteed, Qanshuh al-Ghanawi waxaa lagu tiriyaa suldaankii ugu dambeeyay ee dowladdii Mamaaligta, waxaana xukunka Masar la wareegay dowladdii Cuthmaaniyiinta. Geerida Mudhafaruddin Kawkabudi. Maanta oo kale, 630 Hijriga, oo ku aadan 1233 Miilaadiga, waxaa dhintay Mudhafaruddin Kawkabudi. Wuxuu ahaa hogaamiye weyn oo kala qayb qaatay Salaaxudiin al-Ayyubi dagaaladii Saliibiyiinta ilaa uu dhamaystirmay heshiiskii ay la galeen Richard oo ahaa boqorkii dowladda England sanadii 588 Hijriga. Kadibna wuu soo laabtay, wuxuuna qabtay wilaayada Irbil ee dalka Ciraaq ilaa uu ka dhintay 630 Hijriga.